سؤال سيدي لباتناد سائل كان وحليه هاي شيخ هدي أن بيها قعنت إسكاجا كانوا مركا شهوة ديدو كعدو أما درين كي يوقعو أنيقو إسكاجا إلى رينية أرنكاس سينو إن كلعو ما يبنان تهاي سيدا هدي أن سميو صلاة دي موقو بيسنا يا مو ميرانيا وسؤال مهمة bulshaduna kala hadda dhalinyaro isaga badan tahay fasaadkuna waa badan yahay Facebook iyo fasaadkiisana aad buu u badan yahay masalada markaynu ku soo dhawaano waxa istimnaaga loo yaqaano ama carabtu ay u taqaano jild umayra ay u yaqaanaa umayra ila jaldiyo ya idha halalta biwadi la anisa lahu idha halalta biwadi la anisa bihi وحولي عليك فجلد عميرة أداد وادي لما دقانا صدقته عميرة هذا وهشو يا جلد عميرة بيو يقاني سيجي سنوان ليلانا ووحا أين كنت المامي كرمو إنك عنت بيها الله يسلقك يا وإذا ما قلنا محلقة الشيء مركينو كهض لنا الشرعية هلوى محرم بي قفك الشهوة لما يرودهم بكوكو تاسد إلهي وكتاب بيصد الشهري والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون تلما ما عددك ونكسن الليمان وحكم له وكو فرج بوضع إيرانية وحكاهي حاسس بوضع أدوم مضى إليه أدوم هذا لما هي waxaan xaaskoodahay lagu canaanan maayo hadduu shahwadiisa xaaskiisa ugu guto laakiin ciddii gudubta faman ibtagaa waraa'a dalik shahwadiisii wuxuu ku gudanaya gacantiisa iyo wixii la mid faulaa'ika hum alcaaduun ilaahay wuxuu hi kuwaasi waa kuwa xadgudbay sharciga alle iyo xuduudka alle dhaafeen yacni dembi bay ku dhaceen xaaraan bay ku dhaceen marka waxaan leenahay asal ahaan ficilka noocaasi ma banaana waana dambi kitaabka alla xaaraantinimaynaya qadiyada labaad wax manfaca kuma sugna shahwada ay jabinaysaa waa mu'aqat waa xilli kooban wey say culimmadu caddeeyeen shahwada hadda hayso unbaa ka jabaysa laakiin in yar ka bacdi qofku dareenkiisii waa soo noqonaya ta labaad waxa dhacdo qofku inuu caadaysto oo markuu dareenkiisu kacaba inuu waxa weeye gacantiisa uu jeesto isagoo odhanaya waxaan iska ilaalinayaa zino dabeedna uu iska caadaysto markuu caadaystana xaalado aan wanaagsanayn oo caafimaad baa ka dhasha waxaa dhici karta xubintiisu inaanay kobcin waxaa dhici karta biyuhu marka dambe si fudud inay uga soo baxaan oo xitaa hadduu xaas yeeshaba inuu biyaha isku celin kari waayo oo degdeg uga soo baxdo ayaa laga yaabaa waxaa dhici karta markuu daayimo gacantan uu biyaha iskaga keenayo iyo xubintii alle subxaanahu watacaala ugu talagalay hawshan inay hadhow u kala duwanaadaan sida dadka qaar ku dhacday oo markuu xitaa xaasaysto ee xaaskiisa uu u tago inay xaasku anfici weydo oo gacantii uu u baahdo oo uu iskaga keeno gacantii uu iskaga keeno dadka qaar bay ku dhacday dhibaatooyin badan baa ku sugan marka waxaan leenahay waa in la iska ilaaliyo ficilka noocaasa is-ilaalintiisuna waa dawadii nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam yaa macshara shabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj fainahu agadu lilbasar waaxsanu lilfarj waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa sababaa la iskaga ilaalin karaa waxaa ka mid ah sababaha lagaga fogaan karo horta guurka in la fududeeyo lagu dadaalo oo waxa weeye dadka waalidiinta ayna guurka fududeeyaan dhalinyaraduna ay ku dhiirato oo guurka waxa weeye lagu dadaalo waa dawo qadiyada labaad waxay tahay in waxa weeye la soomo iyadoo allana subxaanahu watacaala loogu dhowaanayo
shahwadana lagu jabinayo waayo qalbigaaguna waa ku dhismaya iyo ruuxdaada dareenkaaguna waa ku jabaya sida nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam qodobka saddexaad waxaa dareenkaaga kicinaya in laga fogaado filimada xunxun iyo muuqaalada aan wanaagsanayn ee qofku intuu daawado dareenkiisu kacayo dabeedna uu odhanaya zinaan ka baqaya uu kusii daraya siigays waa xaaraan loo geeyey xaaraan loo geeyey waa kiilaa ninkii carbeed ka xaa'idin yazni biha wahuwa gayru taahiri waa sidii gabadh caado leh nin ka zinaysanaya isagoo jinaabaysan isagii waa jinaabaysan iyadiina dhiig caaday leedahay waxay isugu yimaadeen waa zino waa foolxumo loo geeyey markaa muuqaalla xunxun inta la daawado haddana lagu soo gabagabeeyo ficilkaa xun waa dee xumaan loo geeyey marka muuqaalada noocaasna in laga fogaado waxyaabaha ka qayb qaadanaya waxaa ka mida inaadan keliyoobin inta awooddaada ah inaad tahay dadka aad ku dhex jirto keliga haddaad qof degan tahay subax iyo galabba nadkuna uu kuu furan yahay dee way iska imanaysaa inaad iskala noolaato hawsha noocana way iska imanaysaa laakiin inta badan haddaad cidi rafiiq kula tahay welibana dad wanaagsan yaa waxa weeye oo xagga wanaagsan iyo talada wanaagsan iyo cilmiga maadi iyo diiniba aad ku mashquulsan tahay danahaaga adduun iyo aakhiraba aad ku mashquulsan tahay fikirka noocaasi waa kaa baxaya insha allahu tacaala ducadana ha lagu daro insha allahu tacaala oo qofkii lagu ibtileeyey ficlan waynu dareemaynaa fitnadu aad bay u badan tahay ninka dhallinyarada is ilaalinaya xitaa waxaa laga yaabaa inay daba socoto waxaan xasuustaa mar hore nin dhallinyaraha su-aal ii soo gudbiyey message halka igu soo diraan filayaa xitaa igulama soo dhicinta inuu ila hor yimaado wuxuu ihi muddaan suuqa ku jiray oo aan banaysnaa dabeedna ilaahay baan u soo noqday oon toobad keenay wuxuu ihi gabdhihii baan isaga taag lahaa war hebel waxgaad ka dhaca gabdhihii baa laygu beleeyey oo eegana oy daba socdo marka maxaan sameeyaa ila taliyo marka ficlan waxa weeye waa imtixaanka taagan weeye akhlaaqdii oo dhimatay fasaad badan oo dhacay tiknolojiyadan iyo waxa ay wadatay obinkayska ah fasaadka ay wadato waxyaabahaas oo dhan waa tii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa xilli fitno waxa lagaga badbaadaya waa duco ya alla subxaanahu watacaala in loo cibaadayso saaxiibka wanaagsan in lagu dadaalo goobaha wanaagsan in lagu dadaalo xuska alla subxaanahu watacaala in la badiyo taasaa insha allahu tacaala ka daba ka noqonaysa laakiin anigu ma qabo way jiraan imaamu axmed iyo culimmada qaar oo yidhi hadduu ka boqo inuu zinaysto hadduu ka boqo uu iska sii daynaya laakiin taas waa tuma waa haddii gabadhu halkan ay diyaar ku tahay intaada gabadha u tagin inaad iska sii dayso waa xaaladaas oo kale laakiin ta inta badan dhacda taa maa qod buu joogaa wuxuu leeyahay zinaan ka baqay zinana meelaha kama dhow marka taa ka hadli mayno waa zina hadda taagan weytay culimmadu ka hadlaya laakiin maaha mid maskaxdaada nafteeda u baqan laga hadli maayo